عصر عافماد ويو عشلو عرنا ودشا أنكو عيدنا قبني موي أنكو عيدنا قبني موي waxaanaynu ku soo dhawaynaynaa oo inooga warramaya shirkan haddii alla ka dhigayo wakhtigu inoo bilaabmay iyo wakhtigu soo intihooday iyo marxaladihii uu soo maray odayga maxamed xasan kaarshe ayaan ku soo dhawaynaynaa falyatafadal bismillaahi raxmaani raxiim shirweynahan aad u sharafta badan ee halka ka jooga ee isugu yimi madashan habuura ee ka kooban beeshan habar jeclo marka hore waan salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi kolley anigu waxaan imanka taabanayaa qaab socodkii shirka siduu ku bilaabmay iyo halkuu imanka marayo waxaa weeye qaab socodkiisa marka hore waxay hawshu ka dhacday ama isla garanwaagu degmada gaashaamo oo ahayd degmadii qabalayadan iyo ummaddan shacbiga ee halka jooga ay ka tirsanayd wuxuu uga bilaabmay degmada dee maamul baynu ku lahayn dalkan iyadaa xukumi jirtay santarradani way hoos iman jireen iyo qabalayadan shacbigan maanta halka fadhiyaana wuu ka tirsanaa dawladda etoobiyana ka mid buu ahaa inta uu ka kooban yahay oo dhanna dee halkaasuunbaa laga hoggaamin jiro laga xukumi jiray kolley dadka waxaa ka dhaxeeyey qaybta dawliga baa inaga dhexaysay iyo xafiisyada iyo xukuumaadaha iyo xaggeeda sare iyo xaggeeda hooseba halkaadda markaa degmada dee waxaynu ku lahayn qayb baynu ku lahayn qaybtii degmadaa aynu ku lahayn markii la arkay in waxoogaa dhibi ka jirto yacniga raggii joogay markaa wuu ka hawlgalay waxaa jira dadku siduu wada og yahay ama aanu ogaynba bulshadan isu timi dee meelo badan bay ka kala timi xogagaan lama wada aha dadkuna waxa wacan bal horta intaan nuxurka la gaadhin in warbixinta guud laysu celiyo oo lays aqbalsiiyo dadkaasi waxaa weeye bulshada ahee halkan jooga ee maanta danihiisa iyo masiirkiisa ka hadli doona ee aanan qodobadiisa iyo arrimihiisa iyo intijaahiisa gaadhi doonin wuxuu ka tirsanaa degmadaa waxaa jirtay in degmadii isla garanwaa ka dhacay isla garanwaagaasoo ah xuquuqdii la wada lahaa xafiisyadii la wada lahaa xukuumaddii talinaysay wixii halkaa hawl ka jirtay waa laysla garan waayey markii laysla garan waayey raggii joogay wuxuu ka gilgishay ama uu ka dhiilaabay ama isgaadhsiiyey ama uu ka ficilooday hawshii markaa halkaa tiilay si markaa mug leh ayay uga wada hadleen waxay isla gaadheen war halkani dani inooguma jirto halkan dani inooguma jirto qaranna waynu nahay masayrna waynu leennahay xuquuqna waa leennahay dalna waa deggannahay dadna waynu nahay waxaa weeyaan halkan haddaan lagu dhammayn oo beesha halkan maanta joogtay habar jeclo aanay ku dhammayn ha ku noqoto danaheedii iyo halkii madalaheedu ahaayeen waxgarad bay leedahay cuqaal bay leedahay salaadiin bay leedahay codkar bay leedahay culimaa'udiin bay leedahay dhallinyaray leedahay haween bay leedahay deegaannay leedahay sidaa awgeed dadkii halkaa joogay ee ragga ahaa oo imminka xooggoodu fadhiyo qayb kastaba ha ahaadeen iyagu qaybo badan ha isugu jiraan ha lahaadeen umaro ha lahaadeen ha ahaadeen cido kale oo maamullo ah adigu hawshaa waa raggii waa uu soo daadihiyo dib uu soo celiyey cidda lagu soo celiyey ee ay ka door bideen ee ay ugu tala galeen ee ay gurigoodii iyo madashoodii ugu keeneen warbixinta ciddan maanta halka fadhida wey sidaa markii ay dhacday raggii ololaan qaadnay qabalayadoo dhan baan marnay cid kastaan tagnay inta dawlad deegaankani ka tirsan yahay oo dhan baan marnay waxaa weeye habar jeclo waa ballaadhan tahay
dalkeeduna waa badan yahay dadkeeduna wuu badan yahay dee waxaa jira haddana caalamo iyo sharciyo iyo dawlado iyo xukuumadaha jira waa inta ka tirsan dawlad deegaanka weeyaan waa iswada gaadhsiinnay waa wacdi gelinnay waa nagu afgarteen madashaa la isla tilmaamay in habuura laga qabanayo ciidii iskuma khilaafin meeshii aannu marnaaba gamco furan bay nagu soo dhowaysay raalligelin bay ka ahayd waa ugu soo diyaargarowday waxay noqotay markaa halkaa markay maraysay in ergo timaadda oo xubnaysan oo deegaankaa ka kooban inay timaaddo taasaa markaa la qorsheeye lagu baaqay tiina way timi ilaahay waa isu keenay nabadgelyay ku joogtaa ma haddaana ilaahay baskale intaasina waxaa weeyaan warbixinta qaabkuu ku bilaabmay halkii laga soo daadaheeyey madashii loogu tala galay cidihii hoggaaminayey ceelkii laysugu yimi wey intaa haddaan ka gudbo habuura oo ahayd madasha laysugu yimi oo maanta deegaankeenna maqaan weyn ka fadhida maqaan aad u weyn ka fadhida waayo hawli markay dhacdo ciddii gacanta ku qabata ama waajibkeeda gudata ama ummadda ururisa ama raalli ka ah hawlaha soconaaya qayb qaadashadeeda waxay dadka ka mudan yihiin bogaadin badan taasina waa ilaahay baa mahad leh habuuraa looga mahad celinaya waxaan u filayaa habuura in badan oo indha'ah baa loo leeyahay cido badanina way ka hadli hawsheedu iyadu waa qayb libaax guddoonkiisa guddida shirka ayaynu ku soo dhowaynaynaa falyatafadal tuways deegaanka sanadka ciidamada ee dowlad deegaanka guddoomiyaha gobolka Dhagaxbuur dhammaan beesha habar jeclo waxay u soo gudbinaysaa salaam ballaaran oo macaan oo fidsan oo salaan sharaf madaxeeda oo ay ku dheehan tahay leydh caafimaad sidaa darteed waa maqlaysaan waa naga guddoomaysaan waanu idiin soo gudbinaynaa idina waa naga guddoomaysaan amaa bacd habar jeclo shir bay ku gashay habuura inta horena wuu soconay waxa ay ka shiraysay dhaliilaha ka soo baxay iyo wada lahaanshihii degmada gaashaamood la wada lahaa ee muddada taariikhda dheere soo jiray ee waxba ay ka weyday habar jeclo waxna looga ogolaan waayay sida ay ka dhidhiday shirkana ka qabatay muhimadiisu waa sida waxay ka shiraysay markaa sidii gaashaamo ay uga ashkatoon lahayd ama uga gudbi lahayd waxay kaloo ay ka shiraysay wixii dowladda masiirka ay ku leedahay habar jeclo dowladda waxaa jirtay oo kale dowladda iyo beesha habar jeclo ee qabaleeyada dowlad deegaanka Itoobiya in badan daah baa ku kala xidhnaa cid baa iska lahayd oo daaha ku kala xidhay waxaanu ka shiraynay waxay ahayd daaha sidaanu isaga qaadi lahayd dabeedna dowladdayada sharafta leh laabtooda iyo laabtayadu isugu furmi lahaayeen wada hadallana noo dhex mari lahaayeen sidaanu ka shirnay soo go'aaminay sidaa weeye sidaasaanu ku soo soconnaa beesha habar jeclo waxay doonaysaa soo go'aaminaysaa markay shirkeeda soo gabagabaysay amuurta aan ka soo hadlayna ay taa tahay inay soo diri doonto wufuud wafdi ah oo u soo dhaadhacda daahana qaada sidaa darteed idinkuna waa u diyaargadoobaysaan haddii aad tihiin dowladdeedii annagoo aad iyo aad idinku mahad celinaynaa annana waanu ku soo soconnaa sidaa xaajadeedu weeye Itoobiya guddidii ka midka ahayd mid ka mid aynu ku soo dhowaynaynaa Axmed Maxamuud علي أيان كسر دوينا فليتفضل. ثبوت بشركة الثلاثين تلا عقاشة له وحجرة كله الدليرة له هوين كله حقول السلام يا دمتون سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام كبعدي وحنو سوني مصير إنه لنا هاي صدق هي صدق قبلي اللي هي طبعا بويان أنت كعاصني وحلقة يابا إذا تغير هذا صدق هي صدق حقيقة كينين ويا كوين وسند صدق أنت صدق اللي هي طبعا بويان أنت كلا وياصناي حلوران ترى واللي هي طبعا بالجوجاي كتبوا عن شيء يتا أنت كلا وياصني وما قالوا ينشره والله يقالوا هذا أنت أشياء حانون هيددي توبيهنا هبرت على ذلك الشوكة هبرت على توبيهنا دولة ديدا وعيو السنة بتقلي يوناك يتعايل وأنا وقشة واحد نبتقلي يدرو كترتا ما تشرتا هالكن دولة يشعب تون الله يكون كلا هرينا دقة حقتون نبتقلي أنا هني مدحوينه رئيس الوزراء مدحوينها هو عيدا مدى وزير هذا ورصاب كيو قبل كيدك حبور لما أنتوا والسلامنا حانو ما أنت هالكنو تاجنا ده رئيس الوزراء تاي يهدي مدحوينه تاي يهدي ورصاب تاي يهدي حسبية تاي يهدي بارلمان تاي وحانو سيدنا إلى سيو قادان وأنو كهلو inaanu ka helno yaanu ka rabnaa waxaanu ku doonaynaa waa waxaanu weelaanu xaquuqdayada kula soo baxno dawladdu noogu soo rido waxaanu noqonay dad aan sinxi lahayn ay wax ku ritaanba waxa dawladdu siin lahaydba qof aan weelu meel ku ritaba lahaynina qofka bilaadanka haduuna meel wax ku rita lahayn qofkii wax siin lahaa wuu la dhaafaya cidii weelka lahayd baa ku ridatay waxaanu ka codsanaynaa waxaanu dawladda Itoobiya ka codsanaynaa hadday ka federaalka tahay iyo hadday takiilka tahay iyo hadday heer gobol tahay iyo hadday heer gobol maamul عاصمة تاي وحنو دورنا مانت مداهرة وما يارك أنكم حدورنا ما فلي أنت أبو وسمرين ما أنت صبر كبا وسو تاجن حنو دورنا إن أنو هلا وين وحنا نقول كده مال دولة ديانا قانون كوضح حدودنا كم معمول كويلنا وأنو دقنو ودولتنا نقول قاتو تدك كلام نقول قال ودقماء دولة وقع أصلنا دولة وحنوها هنا نبتقليو وحنوها هنا شايل وقال لهاي وحلقة يابا هنا ندتك صوماليات أنا سوقنا أنت وقلنا بتقليو ضروني أنا شركة كانوا على كتالس وماذا عليه هذا كتشمس وكو كي هاي هرتنا قليلا ودنك إلى كو كيهين وها وماذا يسوق تبي أوكي هذا الكبرك اللي جوسود وهذا تجمدي عن وحلا هاي صدق هي صدق كسنودود نجد حيسي شعبدا يا حفيسيدا يا وحي سوق الربا نجد حيسي أنت عنو سمريني أنت عنو دول قادنيني ولي بقبل عنو ولا دونيني عنو ولا دوننا وعنو دولة دويدي سنة رجوين عنو كقبلي إن أيامات ومدني كتشتي وقعان كجادي عد أنت أوصل لضاد إلى لبية سديتن كي أنا وحنا حرقي مالو البتيجي دد بدلنا ويقرن دونا أو تيجي كارك دونا أيام تيجي قدام بيسي وحنا وهاين كوي تجي إما حوينها الله كل ماي تيجي تشوجي قرال كعاد عنو خلاص ما يسمي قرال كي عداء مركب عنو كدول منين تدحملات كاها مركب عنو دول منين ماشي نواب اللوالي بقى جيب جديد
sidaa darteed colaadina ma jirto xumaanina ma jirto dad walaalaa baanu ahayn waxbaa naga dhaxeeyey deris baanu nahay dadkaannu isu xognaa maadaama ay halkaa marayso waxaannu go'aansanay oo 16 habeen halkan u fadhinay oo aanu cuqaashayadii iyo salaadiintayadii iyo haweenkayagii iyo waxgaradkayagii isugu yeedhanay degmada marka laga reebo ciidamada ama haadaha madaxa bannaan inaanay waxba naga soo gelin waxna aanaa ku darsan ma aha hadal kani hadal fudud ma aha go'aan jilicsan waanu ka go'nay waxaa intaana maamulaya intaanu anugu qoladii halkan ka hadashay waxaa moodaya inay gobol ku hadlayaan mar haddaa hankeena yaraysanoo degmo ku hadasheen bal inta degmadu iyadu iska hadalaada aynu helayno waxaana maamulaya oo maamulka noo soo gudbinaya gobolka barasaabka ciidamadu ama buuhoodle ha joogo ama baladhiig ha joogo ama dhagax buur ha joogo ama jigsiga ha joogo ciidamadu waa ciidamada annaga na xukumeenu shacabka u nahay weyn waxaan hadalka ku soo ururinayaa odayaasha ugaga baxayaa qaybta kale iyadoo qodobadii halkan la gaadhay la sheegi doono waxaan uga baxayaa wax degmada gudaheeda aan ahayn oo aanu ka go'nay ma jira laakiin degmada waanu kala dhaqaaqnay cid isu kaayo celin kartaana ma jirto marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay isugu keenay goobtan ayna garansiiyay inaynu ka hadalno masayrkeenna ayaa mahad gaara iska leh marka xiga waxa mahadle waan mahad u dirayaa dhammaan dadka isugu yimi halkan ee cuqaal iyo waxgarad iyo aqoon-yahan iyo haween iyo dhalinyaro iyo caruurba leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa dib waxaynu ka hadlanaa haddaynu nahay beesha habar jeclo waxaynu ka hadlanaa waa masayrkeennii marka hore waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan ku xigsiinayaa madaxweynaha kilalkeena shanaad Mustafa ayaan ku xigsiinayaa waxaan leeyahay dhammaan dawladda deegaanka Soomaalida dhammaanteed hadday baarlamaanka tahay hadday xukuumadda tahay aad iyo aad baan u salaamanaa haddii aanu nahay beesha habar jeclo aad iyo aad baan u jecelahay waxaanu leenahay xuquuqdii aanu lahayn haddaanu nahay beesha habar jeclo ayaanu ka rabnaa beeshaasoo ah beel dulmanayd runtii oo ay wada lahaayeen beel kale oo la yidhaahdo habar yoonis magaalada degmada la yidhaahdo gaashaamo bari wixii aanu isku darsannay ee dadba ogaa waxa weeye 3 meelood ayaa loo soo qaatay wixiiba eber ayay ka dhigeen oo sideedii bay wada qaateen waxaanu leenahay masayrkaanu rabno haddii aanu nahay habar jeclo waa degmo aanu xuquuq ahaanna ugu leenahay dhastari ahaan intaanu degno iyo baableeshin ahaan intaanu leegnayba waxaanu leenahay degmo ayaanu ka rabnaa xukuumaddeenna kilalka shanaad ee Mustafa uu madaxweynaha u yahay waxaanu leenahay madaxweynaha Mustafa waanu soo soconnaa warbaahinta uun dad ka hadlaya ma nihin waanu soo soconnaa waanu imananaa jaran iyo xubin loo socdaa bay leedahay dhagax buur iyo magaalamada degmadii gobolkii baanu imananaa waanu soo baxanaa waxaanu imananaa madaxtooyada waxaanu doonanaana wixii aanu xaq u lahayn baanu rabnaa madaxweyne waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo ugu mahad celinayaa dadweynaha reer Habuure dhammaantood nooc kasta oo ay yihiin say u leeyihiin haddii la sheegsheego leeyahay caaqil iyo suldaan iyo rag iyo dumar qaar baa la dhaafi doonaa laakiin dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa sida wanaagsan ee xilkasnimada iyo daacadnimada ah ee aa u martigeliseen shirkan midnimo anigoo ka wakiila maamulka ka jira deegaankan waxaan mar labaad salaan u gudbinayaa dhammaan shirweynaha nooc kasta oo salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo marti sharafka kale dhammaantood
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka labaad marka hore waxaynu nahay dad Ethiopiana wadankuna wuxuu leeyahay sharci marka hore diinta islaamka inoo sharciya dad islaam nahay marka labaad wadanku wuxuu leeyahay dastuur iyo sharci lagu hago 120 milyan oo qof oo Ethiopiana waxa soo haya sharciga iyo dastuurka kaas baynu taageersanay dhamaanteed si loo nahay ciddii ka hor timaada waynu ka soo horjeednaa ciddii waafaqsan ee u hoggaansanna falyatafadal baynu nahay marka labaad qodobka labaad ee ugu jeedo waxa weeye waxaanu salaamaynaa shirku aad iyo aad u salaamaya bacdama aan ka wakiilay xukuumadii iyo maamulkii yaraan male waa qabaleena male marba ciddii ka wakiila unba dawladda uga wakiila marka waxaan ku hadlayaa afka dawladda tada yar iyo tada weynba aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee nabadgelyada ee dadkan beesha halkan degtaa ay ugu hoggaansan tahay dawladda iyo maamulkeeda marka labaad dawladda salaanta aad salaamaysaan madaxweynaha farasaabka gobolka ra'iisul wasaaraha federaalka dhammaan aad iyo aad baan idinka gudbaynaa waa ku mahadsantihiin marka ku xigta go'itaan marka la leeyahay go'itaanku waa laba qaybood horta marka hore cid kasta oo Itoobiya ka mid waa xor halka ay raacayso iyo cid ay raacayso dastuurkooda ayaa dhigay qodobka 11 ayaa dhigay cid ka go'aysa ilaa heer degan ilaa heer gobol ilaa heer degmo marka waxa weeye beeshu waxay ka hadlaysaa heshiis ay kula jirtay degmada oo jabay oo dhinac ka mid jabay mar haddii heshiiskii cidi jabiso sidaa ayuu heshiisku baaba'ay gebi ahaanba mar haddii heshiiskii burburay lagu wada jiray oo uu jabay waxa weeye halka looga gudbay ee ku xigtaa waxa weeye gobolka marka anigoo marna ku hadlaya afka maamulka marna dee degaankii ka soo jeeda waxaanu leenahay oo aanu u gudbinaynaa mar haddii heshiiskii degmadu jabay kii gobolka ayaanu maanta u gudubnay oo hoos joognay waxaan salaamayaa ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi basharka aan khalqay qofka aan u mahadnaqin ilaaha abuurtay uma mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa 33 qabalay ee isu yimi danahooda ka hadlaaya dhaxalka ay rabaan ee masiirka Itoobiya ay ku leeyihiin isugu yimi waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa hadduu suldaan yahay hadduu caaqil yahay hadduu 33 qabalay maamulkeeda yahay dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa hablaheenan qaaliga ah ee 16 habeen u fadhiyay soo jeeday aan seexan aad iyo aad baan u salaamayaa hawsha ay galeen ilaahay waxaan uga baryayaa inuu wax khayr leh ku siiyo waxaan salaamayaa dawladda Itoobiya madaxweynaha sharanka ciidamada dhammaan wasaaradaha Itoobiya oo dhan wasaaradaha dhammaan siday u dhan yihiin ra'iisul wasaaraha dawladda deegaanka waxaan salaamayaa barasaabka gobolka gudoomiyaha dhammaan waan salaamayaa waxaan u soo degayaa 33 qabale ee fadhiya halkan isugu yimi maanta dantooda ka tashanaya aayahooda isugu yimi waxa ay ka kaceen waxa weeye degmada gaashaan waxa ay diideen wixii ay la lahaayeen bay waayeen
way ku samrayeen nabadgelyaday ku ilaalinayeen maamulkay si wacan ugu hayeen wixii ay xaq u lahaayeen bay waayeen xaq wixii ay u lahaayeen bay waayeen maadaama ay waayeen oo ay dad muwaadilo oo Itoobiyaan ay yihiin xaq waxay u yeesheen inay dawladda Itoobiya la xidhiidhaan oo gobolka la xidhiidhaan madaxweynaha la xidhiidhaan federaalka la xidhiidhaan waa maqlaysaan hadalkooda qabalayada oo dhan hadalkoodii waa maqlayseen haddii aanu nahay 33 qabalayo cuqaasheeda oo fadhida waxaanu aad ugu dadaalaynaa kana shaqaynaa gabigeeguba nabadgelyada alxamdulilaahi rabbil caalamiin nabadgelyada horena waa u haynayay makana waa haynaynaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu xaqana waafajiyo ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa inuu nawaafajiyo marka hore ilaahay baa mahad leh mahadda maanteed ilaahay bay u sugan tahay dhinacna ilaahay kama dhaafto mahaddu ilaahay dhinacna kama dhaafto waxaan salaamayaa 33 qabane beelaha habar jeclo Itoobiya ee halkan isugu timi rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel si gaar ah baan u salaamayaa waxaan ku xigsiinayaa dawladda Itoobiya aynu ka mid nahay madaxdeeda oo ra'iisul wasaaruhu u mudan yahay iyo golaha xukuumadda federaalka golaha deegaanka dawlad deegaanka madaxweynaheeda iyo gobolkeena jarareed madaxdiisa gudoomiyihiisa intaba salaan sharaf leh yaan u soo diraynaa haddaanu nahay beelaha habar jeclo ee hawd ama Itoobiya waxaanu tacsiyadaynaynaa dadkii xaqdarrada lagu dilay madaxdii xaqdarrada lagu dilay ee kilalka amxaarada tacsi baanu u soo diraynaa waxaanu tacsiyadaynaynaa janankii ciidamada ee gacanta xaqdaran dishay waanu ka xunahay haddaanu beelaha habar jeclo Itoobiya nahay waxaanu barbar taaganahay dawlad weynta Itoobiya inta nabadda jecel intaana waanu barbar taaganahay oo ka mid baanu nahay dadka nabadda jecel baanu ka mid nahay waa cambaaraynaynaa kuwa iyo kuwa kale ee shaqaaqada xun nagula dhex jirana waanu cambaaraynaynaa halkan waxay isugu yimid sidii odayadii horeba sheegeen 33 qabale oo 17 ka mid ah ay aasnaayeen weligoodba oo dawladdii Itoobiya qaybtii aanu ku lahayn gaashaamo ay aastay oo maanta ifka u soo baxay waxaanu doonaynaa sida odayadii horeba yidhaahdeen oo naga oodan maamulkii gaashaamo degmada tootali waanu ka baxnay waxaanu ku xidhnaan doonnaa haddii ilaahay laga helo intaanu ama gobol helayno ama degmo helayno oo aanu gobolka sii jecel lahay waxaanu ku xidhnaan doonnaa gobolka yaga gudoomiyaha gobolka jarareed ee dhagax buur yaanu ku xidhnaan doonnaa masayrkaasoo ahaa cadaadis caburin iyo dulmi ay dulmanayd bay maanta isugu timi inay ka tashato oo ka digarigato oo ayaheeda iyo mustaqbalkeedaba ay kaga tashato marka hore waxaan salaamayaa dawladda Itoobiya dawladda dhexe ra'iisul wasaaraha dawladda kilalka Mustafa Maxamed Umar golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka iyo gobolka xudunta loogu xidhnayd ama aan iminkaasleen aad ku xidhateen ee gobolka jarareed ee dhagaxuur gudoomiyaheeda iyo kawsarkeedaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaa iskugu keenay
waynu sognahay waa dulmi aynu tirsannay oo aynu ka tirsannay degmada gaashaamo oo aynu isu tagnay 1992 degmada waxaan isku darsannay 1992 inaanu degmada wada lahaano in waxa soo galaya iyo waxa ka baxayaba aanu saamigayagu iskaga mid yahay waxayse ay noqotay mid reer leeyahay oo wixii aanu isku darsannay iyo wixii aanu isula nimi ilaa iyo 92 ilaa iyo imika reerkii ay isu tageen wax isku darsadeen wax allaale wuxuu ka helaayay jirin ilaa iyo waqtigaa aan sheegay hadduu reerku si kasta u eegay hadduu si kasta u samray hadduu si kasta u soo cidijiiday maanta wuxuu iskaga yimi samir uu ka soo samray degmada gaashaamo oo uu isyidhi ragga aad xigaalka tihiin waxba la lahaan kari maysid ee waxaad leeday doono marka hore waxaan u sheegayaa guddoomiyaha gobolka madaxweynaha kilalka golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka waxaanu nahay ummad etoobiyaan ah oo 3 qabalay degta oo 3 qabalay cadaalad darro awgeed laga soo reebay 16 maanta aanu ka soo afuufnay boorka oo halkaas soo taagnay 3 qabalayba oo ay fadhiyaan guddoomiyaashoodii iyo odayaashoodii iyo deegaankoodiiba rag iyo dumarba maanta halkan ay fadhiyaan waxaanu leenahay madaxweyne waxaanu nahay ummad degmo u qalanta oo laba u qalanta oo qaadi karta waxaanu kaa codsanaynaa oo si sharaf la kaaga codsanaynaa oo magaca habar jecla kaa codsanayaa wixii aanu xaq u leenahay ee dawladda deegaanka xaq aanu ugu leenahay ee khayrkaya leeyahay inaadna siiso taasaanu madaxweyne kaa codsanaynaa wixii khayrkay leeyahay mar haddaannu 3 qabalaynahay oo beesha habar jecla leedahay degmo iyo lababa oo qalannaa madaxweynihii horena waa noo magacaabay degmuu hore noogu magacaabay kuwii la dhilidgareeyey bay ahayd kuwii aad ka saartay bay ahayd deegaanka ee dhowr iyo 90 ahaa ayay degmo loo magacaabay maanta waxaanu doonaynaa tiina loo magacaabay meel kastaba ha noqotee inaadna siiso oo ummadda habar jecla siiso waa qaran ballaaran waa qaran u qalma waa qaran soo jeedintiisa iyo nabadgelyadiisa intaba ay ku suntan tahay waxaa nugu suntan nabadgelyo mar labaad iyo mar saddexaadba nabadgelyaa nugu suntan waxaanu nahay ummad islaama dalka iyo dadkaba nabadgelisa waxaan soo dhowaynaya oo si guulo si miisaan lagu soo dhowaynaya ciidamada Itoobiya nooc kasta ay yihiin waan soo dhowaynayaa hadday yahaan ciidamada dawladda dhexe hadday yihiin ciidamada dawladda kilalka ama boolis noqdo ama nuyu boolis noqdo aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waana la shaqaynaynaa waxaanu maanta aanu calaamad cas ku saarnay oo aanu ku dhignay oo ka tashanay mustaqbalkayaga inaanan gaashaamo aanan ahayn maanta laga bilaabo degmada gaashaamo mani waan meeynu nahay degmada gaashaamo manihin waa ka tashanay uqaashiyada codkortkayaga salaadiinteeda ugaasiyada intuba waa ka tashanay inaanu gaashaamo ka goono aanan wax dambe u doonan intaasaan degmo helino
ee dad xora noqonayno aanu gobolkayaga jarareed ee dhagax buur la xisaabtanno wixii naga maqan aan kaga doonno waxaan tacsi u dirayaa dowladda Itoobiya tacsi ballaaran baan u dirayaa waxaan cambaaraynayaa inqilaabkii dhicisoobay ee lagu fuliyey aad iyo aad baan u cambaaraynaa haddaanu beesha war jeclo waxaanu ku ballan qaadaynaa iyadoo cuqaashii iyo codkarkii iyo odayaashii haweenkii iyo dhallinyaradii oo fadhiyaan waxaanu ku ballan qaadaynaa in dagaalka iyagu nabadgelyo yahay noqonna doono insha allahu tacaala nabadgelyuu yahay waa la yaqaanaa kilalku waa yaqaanaa Itoobiya way taqaanaa nabadgelyaanu haynaa horena waa haynaa imkana haynaa sina hayn doonnaa waxaan hadalka ku soo ururinayaa waan mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahay madaxweyne ummad u qalantaan nahay degmo laba bal gobol ha joogo laba degmaan u qalannaa horaana loogu magacaabay dib baad ula noqota madaxweyne ummad maseerkeedu qaali u yahay baanu nahay haddaanu nahay beesha war jeclo xaraga waa jecel nahay sharafna waanu jecel nahay dowladda iyadana waa jecel nahay madaxweyne wixii aanaan xaq ugu lahayn kaa dooni mayno waxaan saanu xaq u leenahay waa kaa rabnaa oo dowladda iyada waa ka rabnaa oo kilalka iyaga waa ka rabnaa waxaan aan sheegaya mar labaad iyo mar saddexaad maanta laga bilaabo gaashaamo waxaana la odhan jiray gaashaamo bari gaashaamona gaashaamo galbeed labada reer isaa isugu tegey baanu hayna magacyadaa kale lahaa maanta haddaannu bari nahay oo kilalka bari ugu xigno oo isaaq bari ugu xigno waxaannu leenahay wixii aan xaq u leenahay ee waxtaro leenahay ee xaq u leenahay hadday dawad tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo haddii hay-ada dadka caalamiga ay tahay waxaannu doonaynaa inaannu gobolka aannu ka helno toosna uga helno gaashabana ayna noo soo marin guddoomiyaha gobolka dhagaxbuur waxaan ka codsanaynaa inaannu gaashaamo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaannu leenahay inaannu gaashaamo waxba noo soo marin aannu ka goonnay aanaan kuna noqon doonin ummadda halkan joogtana aan odaygeeda ugu ahay masayrkayduna caynkaa yahay baan hadalkii ku soo goobayaa waxaa xigi doona oo aanu dhiibayaa oo caalamka la maqashiinaya oo dowladda la maqashiinaya Itoobiya wixii qodobo ah ee aanu shirka ka soo saarnay baan lagu dhawaaqayaa waxaanu ku dhawaaqi doonaa xogayaha shirka wabilaahi tawfiiq ku soo dhawow xogay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana qabsoomay qabaleega Habuura kaas oo ku salaysan nabadgelyo wuxuu qeexayaa sida tan in hordhaca oo halkan ku taala ayaa ka horeysa qodobadana waa sugi doontaan waxay beesha habar jeclo nabadgelyo kula nooshahay dowladda federaalka Itoobiya dowladda deegaanka Soomaalida heer gobol iyo heer degmaba iyo beeraha deriska ah ee hareeraha in aanu waayeen ka labaad in aanu muxaafid ku nahay u nahay dowladda dhexe dowladda deegaanka Soomaalida iyo heer gobolba saddex waxaanu diidnay wada lahaanshihii degmada gaashaamo ee beelaha habar yoonis iyo habar jeclo markay muuqatay mar labaad habar jeclo waxaa ka go'an in ay nabadgelyo kula noolaato dowladda dhammaan iyo shacabweynaha
DDS dowladda deegaanka Soomaalida lana ilaaliyo sharafta iyo samcadda beelweynta habar jecel waayay go'aamada shirka go'aamada beesha habar jecel kow waxay beesha habar jecel go'aansatay laga bilaabo labada bisha 11/2011 Ethiopian calendar in beesha habar jecel ka goday degmada Gaashaamo habar jecelana ay doonato masiirka ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo oo sii maraysa gobolka iyo dowladda deegaanka Soomaalida laba waxay beeshu cadaynaysaa in ay qoraal ku hayso wixii kalifay in ay ka godo degmo beeleedka Gaashaamo iyadoo oo dhammaystiran keenaysana goob kasta iyo mar kasta oo loo baahdo dhibaatada go'aanka kaliftay saddex waxay beesha habar jecel cadaynaysaa in cid kasta oo aan ka ambabixin 32 qabalay aanay matali karin deegaanka beesha habar jecel ee degan dowladda deegaanka Soomaalida noocay doonaanba ha ahaadaan afar waxay beesha habar jecel cadaynaysaa in laga bilaabo labada bisha 11/2011 Ethiopian calendar in aanay ka dhex shaqayn karin beesha maamulka degmada Gaashaamo marka laga reebo ciidanka iyo hay'adaha mooyaane diyaarna ay beeshu u tahay in ay si toos ah looga maamulo gobolka inta ay beeshu xaqeeda helayso shan waxay beesha habar jecel cadaynaysaa in guud ahaanba in aanay haysan beeshu xaqii ay ku lahayd dowladda deegaanka Soomaalida taas oo ah deegimo ay kula xidhiidho dowladda deegaanka Soomaalida qodobka lixaad in ay beeshu qaybiso guddi laga qaybiyo shirka oo raadinaysa masiirka beesha habar jecel ee dowladda deegaanka Soomaalida ergada oo ka tagaysa 32 qabalay ee beesha wado kalena aan lahayn toddoba waxay beesha habar jecel ka codsanaysaa madaxweynaha sharafta leh ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxa xisbiga dimuqraadiga Soomaalida iyo dhammaanba ciddii kale ee codsigan uu khuseeyo in beeshu ay doonayso degmo madax bannaan xaqna ay u leedahay dhul ahaan iyo dad ahaan marka loo eego muggeeda iyo miisaankeedaba mar labaad waxay beeshu codsanaysaa in loo tixgeliyo codsigeeda ilaah baa mahadle